basaasiintu waxa ay shaqadoodu tahay raadinta soo ururinta iyo soo gudbinta seeha qarsoon si loo xaqiijiyo amniga waddan leeyahay. maanta waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago qisada laba basaas oo guul cajiib ah ka gaaray basaasnimada. ku soo dhawaada daawadayaal. basaaska koowaad waa Eli Cohen. waxa uu ku dhashay magaalada taariikhiga ah ee Alexandria waddanka Masar sanadkii 1924 waxaana uu ka soo jeeday qoys Yahuudi ah. aabihiis ayaa ka soo socdaalay magaalada Aleppo ee dalka Suuriya sanadkii 1914 isagoo soo aaday dhanka Masar halka uu Cohen ka dhigtay iskuulkiisa. Janaayo 1947 wuxuu damcay inuu ku biiro ciidanka Masaarida balse uma aysan suuro gelin waxyaabo badan oo lagu xujeeyay dartood sida inuusan muwaadin ahayn sharcina haysan. sanadkii ka dambeeyay jaamacadii ayuu isaga tagay oo uu wax ka baranayay waxa uuna bilaabay inuu wax ku barto gurigiisa. dhibaatooyin badan oo halka kala kulmay irteed markii dhidibada loo taagay dawlad Israa'iil leedahay qoysas badan oo Yahuud ah ayaa ka baxay Masar waxaana kamid ahaa waalidiintiisa iyo saddex walaalihiisa ayaa aaday Israa'iil 1949. Cohen waxa uu sii waday inuu dhameysto shahaadada dhanka elektaroonikada ah iyo isku duwidda howlaha Yahuudda. sanadkii 1951 kadib markii lagu soo rogay afgambi military Masar walla ka dhanah Yahuudda ayaa la bilaabay waana la xiray oo su'aalo laga weydiiyay dhaqdhaqaaqiisa dhanka Israa'iil. Cohen waxa uu ka qayb qaatay howlgallo badan oo Israa'iil, Masar iyo meelo kale ka fulisay. sanadkii 1955 ayaa uu ka mid ah muwaadiniinta Yahuudda ah oo ku sugan Masar soona qoreen booliska qarsoodiga ah ee Israa'iil ee ka soo horjeeda Masar iyo howlgalladii sunnah loogu magac daray ee Yahuudda Masar loogu musaafirinayay ayaa isku dayay in ay burburiyaan xiriirka Masar iyo dhanka reer galbeedka. cutubkan ayaa qarxiyay dacaayado Masar laga tusinayay Ameerikaanka iyo Ingiriiskaba waxaana arintan si fiican kaga qayb qaatay Masar. Cohen mas'uuliyiinta Masaarida ayaa soo bandhigtay eedeymo ku wajahan kooxdan oo maxkamad la aaday. laba ka mid ah xubnaha kooxdan ayaa lagu xukumay dil. Cohen ayaa gacan ka geystay qaybta waxaana caddeeyay in isaga iyo kooxdan xiriir weyn u dhaxeeyay. xukuumadda Masaarida ayaa sii kordhisay cadaadiska Yahuudda waxayna ka saareen qaar badan oo ka mid ah dalka. bishii December 1956 Cohen waxa lagu qasbay inuu ka baxo dalka isagoo taageero ka helay wakaaladda howlaha dadka qaabilsaneed oo Yahuudda laga leeyahay ayuu u haajiray dhanka Israa'iil sanadkii 1957. Cohen waxa loo shaqaaleeyay ciidanka difaaca Israa'iil waxaana la geeyay dhanka sirdoonka militariga halkaasi oo uu ka noqday falaaqeeyo dhanka ciidanka ah. waxa uu isku dayay inuu ku biiro Mossad laakiin Mossad waa ay diiday. xubinimada ciidanka ayuu iska casilay waxa uuna bilaabay inuu magaalada Tel Aviv ka noqdo tukaanle. sanadkii 1959 wuxuu guursaday Nadia Majalad oo ahayd gabar reer Ciraaq ah iyagoo isku dhalay 3 caruur ah. Mossad markaani waxay u baahatay wakiil qaas ah oo u dhexgala xukuumadda Suuriya waxa ay guda galeen inay siiyaan tababar dhanka muqaabaraadnimada ah. dhowr toddobaad isaga oo tijaabsanaya hawshiisa guda galay waxaa la siiyay aqoonsi been abuur ah oo sheegay inuu yahay ganacsade Suuriyaan ah oo ku soo laabtay dalka sanadkii 1961. Cohen waxa uu guuray Dimashq bishii February 1962 isagoo la baxay magaca Suuriya kaga howlgalayay oo ahaa Kamil Amin Sabit. waxa uu xiriir la sameeyay siyaasiyiin sarsare oo dawladda Syria ah, saraakiisha militariga, shakhsiyaadka dadweynaha ugu miisaanka culus iyo diblomaasiyiinba. hawshan waxay ahayd mid aad ay ugu shaqeeyeen Mossad. ogaana waxa uu ahaa nin ka howlgalaya inuu yahay nin maal haysta ganacsade ah oo saameyn leh doonayana inuu dalka maalgashto. waxa uu sii watay hawshiisii muqaabaraadnimada iyo ganacsiga. waxa uu xoogga saari jiray dhageysiga wargeysyada siyaasadeed. waxa kale oo xafiisyo ku lahaa gurigiisa kuwa uu kula kulmi jiray madax sare oo dawladda Syria ka tirsan sida wasiirada ganacsatada iyo wixii la mid ah kuwaasi oo adeegsan jiray guriga Cohen. waa rag wax sas ah ama shakiya ka qabin xubno mid ay ka beentahay u gudbinaya sida dhanka dawladda iyo qaabka guud ee dalka. isaguna waxa uu sii xawilayay dhanka Tel Aviv. waxa uu si fiican u dhexgalay dawladda Suuriya qaybaheeda kala duwan oo uu dhan kasta saaxiib ku yeeshay gaar ahaan dhanka ciidanka sirdoonka iyo siyaasiyiinta. sanadihii 1961 ilaa 1965 oo uu Suuriya ka howlgalayay waxa uu in badan wax taray Israa'iil. waxa uu soo tabin jiray dagaalka Carabta iyo Yahuudda markii uu socday qaabka ama taatikooyinka ay adeegsan jireen ciidanka Suuriya ee ku sugan buuraha Golan iyo sida ay ugu qabsan karaan. taa way ku guuleysteen wali waxa shaki ah lagama qabo dhanka Suuriya waxaana loo dalacsiiyay madaxa la taliyaha ee wasiirka difaaca dalka.
waxaa saaxiibkan uu ugu kalsoonida badan yahay ka dhigtay madaxweynihii Suuriya u talinayay 1963 ilaa 1966 Amiin al-Hafiz waa ninka ugu sareeya dalka saraakiil hoose iyo wax la mid ah waa ka soo gudbay markan waraysi uu la yeeshay telefishinka Al Jazeera 2001 Hafiz waxa uu iska fogeeyay inuu saaxiib lahaa Cohen balse waxaa lagu sheegay saaxiibtinimada noocan ah in ay ahayd mid mucjiso ah nin gaaray halkii ugu sareysay qaranka ayaa yaab ahayd oo ah sirdoon Israa'iil soo dirsatay ma aysan go'in saaxiibtinimadii oo meel adag ay maraysaa heeru haddana qarka u fulay markii uu madaxweynaha dalka noqday Hafiz inuu ka mid noqday dadka ugu dhow ee loo xushay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mr. Cohen arrintan iyada oo meel fiican maraysa ayaa waxa ogaaday rag sare oo ka mid ah muqaabaraadka Suuriya waxaa la soo qabtay mar ay xeero iyo fanaar kala dhaceen sanadkii 1965 ayaa lagu daldalay fagaaro ku yaala magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya basaaska labaadna waxa uu ahaa Aldrich Amis waxa uu ahaa sarkaal ka tirsan hay'adda sirdoonka Mareykanka CIA habda soonayo ula shaqayn jiray sirdoonka KGB ee dalweynaha la isku oran jiray midowga Soviet baratan adagna dhex yeelay dalkiisa hooyo ee Mareykanka muddo 10 sano ku dhow waxa uu sir macluumaad muhiim ah xambaarsan u gudbin jiray hay'adda muqaabaraadka Soviyetka inuu dalkiisa dhaqro oo basaas noqdo waxa ku qasbay markii ay kala boodeen gabar u dhaxday taana waxay keentay in deymo aan xad lahayn lagu yeesho hay'adda CIA-da mushaarka uga qaadanaya oo baahi tiri weysay waxa uu ku fakaray inuu bankiyo dhaco si uu isaga bixiyo deymo kor u dhaafaya $60,000 markii uu xal u keeni waayay dhaqaalaha faraha badan ee lagu leeyahay bixintiisa waxa uu iska dhaadhiciyay inuu dalkiisa qiyaano oo basaas ku noqdo muqaabaraadka Soviyetka waxa lagu sifeeyay inuu ahaa shakhsi aad lacagta u jecel taa oo dhabaa waxa artay inay ka faa'iidaan duruufaha la soo gudboonaatay muqaabaraadka Soviyeetku iyagoo sidii roobka ugu dhoobay adduun lacageed uusan weli ku riyoon taa badalkeedna iyana uu ku xarqiyay wixii xog sirdoon ah oo dalkiisa ka hayay taabtikada uu isticmaali jiray marmar ayaa ahayd inuu xilli kasta uusan muujin daacadnimo iyo howlkarnimo dheeli ah caajiska iyo firfircooni la'aanta dilootay waxay keentay inaan laga shakin la shaqayntiisa Soviyetka muddo dheer waxa uu ku jiray xog ururin sirdoon oo ahayd dhanka basaasiinta Soviyetka ee CIA-da la howlgali jiray aadna u dahsoonaa 1985 bishii Abriil 16 markay ku beegneed hor inta aan la qaban waxa uu baqshad ay ka buuxaan macluumaad sirdoon u dhiibay oo gacanta ka saaray sirdoonka midowga Soviet oo safaaradda Mareykanka ay ku leeyihiin ku sugnaa balana ay ku lahaayeen maalinka waxa la guddoonsiiyay oo abaalmarin looga dhigay adduun lacageed $60,000 dawladdiisu markii ay qorshaha ku faantay oo gacanta ku dhigtay waxa uu ku horumarsiyooday in ay gacan qaban markii uu baahi qabay taasina ay ku kaliftay inuu dalkiisa u basaaso muqaabaraad shisheeye